dagaal beeleed khasaare ba'an sababay ayaa ka dhacay galbeedka gobolka Mudug si gaar ah deegaan lagu magacaabo Jicbuur. Dagaalkaani ayaa u dhaxeeya beelo walaalo ah waxaana soo bilowday saaka aroortii subax ilaa ay maanta oo dhan ayuuna halkaas uu ka socday. dagaalkaani ayay dhinacyadu isku adeegsadeen hub leh nuucyo kala duwan waxaana daryanka rasaasta ay dhinacyadu isku adeegsanayeen laga maqlayay deegaano fogfog oo ka dheer deegaanka uu dagaalku ka socdo oo ah deegaanka Jicbuur oo ku yaala galbeedka gobolka Mudug. dagaalkaani ayaa sababay khasaare aad u ba'an oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaas ku diriray waxaana la xaqiijiyay in halkaas ay ku dhinteen 22 ruux sidoo kalena waxa ku dhaawacmay dad kale oo gaaraya 18 kale. dadka halkaas ku dhaawacmay iyo sidoo kale kuwii ku dhintay dagaalkaasi ayaa loo kala qaaday isbitaalada ku yaala gobolka Mudug halkaas oo iminka qaar ka dhintay ay frinjeer ku jiraan kuwii dhaawacmana halkaas lagu dabiibayo. dagaalka oo saacado fara badan socday ayaa si iskiisa u istaagay waxayna dhinacyadu iminka ay ku kala mashquulsan yihiin aasitaanka dadkii kaga dhintay iyo sidoo kale sidii u dabiibi lahaayeen dadka kaga dhaawacmay dagaalkaasi. ma jirin intii uu socdo dagaalkaasi cid kala dhex gashay hase ahaatee waxaa goobta uu dagaalka uu ka socdo gaarayay ciidamo gurmad ah kuwaasoo dhinacyadu ay kala helayeen. dagaalka ayaana sidaasi ku sii daba dheeraaday labada dhinac ayaa markii ay wax badan isdagaalayeen iskoo dagaalka u istaajiyay. iminkana waxaa laga cabsi qabaa mar kale inay isdagaalaan oo ay iska dilaan dad kale oo iminka naftu ay ku jirto. ma jirto ilaa ay hadda tilaabo ay qaadeen maamulada Galmudug iyo Puntland oo ay ka soo kala jeedaan maleeshiyaadka isku diriray deegaanka Jicbuur ee ku yaala galbeedka gobolka Mudug. maleeshiyaadkani ayaa 2 maalin ka hor halkaas isku diriray waxayna iska dileen dad kale oo ayna gaaraya 20 kale. sidaasna wadarta guud ee dhimashada waxay ku gaaraysaa 20 ruux oo dagaalada ka dhacay deegaanka Jicbuur ku naf waayay. dagaalkani ayaana ka soo bilowday in lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug sidoo kalena maleeshiyaadkani waxa u dhaxeeyay khilaaf ka dhashay dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka Mudug. aanadaasi iyo sidoo kale isqabqabsiga dhulkaasi ayaana sababay in halkaas ay ku naf waayaan 40 ruux iyo sidoo kale dhaawacyo kale oo dagaalkaasi ka dhashay. odayaal dhaqameedyada labada dhinac ilaa ay hadda ma jirto ayagoo tilaabo ay qaadeen oo ay wax kaga qabanayaan colaadda ka taagan deegaanka Jicbuur ee galbeedka gobolka Mudug. dadkii deegaankaasi deganaa ayaa kal horaata ka sii qaxay ayagoo ka cabsi qaba colaaddu inay saameyn ay ku yeelato. lama oga arrintaani waxa lagu dami karo iyo sidoo kale tilaabada ay qaadi karaan maamulada Galmudug iyo Puntland iyo dawladda dhexe oo iskaashanaya si loo joojiyo dhiiga dadka walaalaha ah ee ku daadanaya deegaankaasi. muu baahan tahay tigid ama fiiso si aad ugu safarto wadamada aad jeceshahay. Xalana Travel Agency ayaa ku diyaarisay si ay kuugu fududeyso safarkaaga. tigidhada diyaaradaha oo qiimo macquul ah, adeegyo gaar ah oo ku diyaarinaya safar raaxo leh ha ahaato shaqo, dalxiis, xaj iyo cumro intaba. waxaan khibrad gaar u leenahay inaan ku soo saarno fiisooyinka wadamada soo socdo. Masar 10 ilaa iyo 15 maalin, Hindiya 10 ilaa iyo 15 maalin, Kenya 3 ilaa iyo 4 maalin, Uganda 5 maalin. waxaan ku ballan qaadaynaa adeeg hufan, qiimo ku raali geliya, maxmil qancintaadan ka shaqaynaa 24 saac. ku xidhnow dunida, dalbo tigidhkaaga ama fiisadaada maanta oo bilow safarkaaga riyada. wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.